voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaada ah 8 bisha May sanadka 2018 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. waranagu Soomaali baana dagaalka khaliijka in la soo xawilo carabi haday dagaalamaysa ku dagaalanta dhulkeeda maxaa sababaya in annaga ciidayadu ay noqoto iyo dadnimada iyo dawladnimada mid la isku haysto dhibaatada laga geysan shay sax ama kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe warbixin ayaan idinkaga haynaa. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena saakana waxaa ka mid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo diyaarisay ciidamo suga ammaanka magaalada Muqdisho. natiijooyin hordhac ah oo ka soo baxay doorashooyinkii baarlamaaniga ee dalka Lubnaan. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii caalamka. agaasimaha fulinta ee hay-adda BBG oo ah hay-adda maamusha dhammaan laamaha kala duwan ee VOA John F. Lansin ayaa isniintii shalay ugu baaqay madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza in uu ka laabto go-aankii ay dowladdiisa ku mamnuucday idaacadda Voice of America. hadal qoraal ah oo uu soo saaray John Lansin ayuu ku sheegay in VOA ay sii wadi doonto caawitaanka ee dadka Burundi ay ku caawinayso warar iyo barnaamijyo sax ah oo lagu kalsoonaan karo, isaga oo yiri waxaan ugu baaqaynaa madaxweyne Pierre Nkurunziza in uu ka laabto go-aankiisa si uu dadkiisa uga caawiyo xaqiijinta ammaanka, uga hortago xasilooni darri, islamarkaana uu u dhowro shacabkiisa. qoraalka ayaa sidoo kale uu ku sheegay in go-aanka dowladda Burundi ee muddada 6 bilood ah ay uga mamnuucday idaacadaha FM-ka ee VOA dalka Burundi uu soo baxay maalin kadib markii dunida lagu xusay maalinta saxaafadda xorta ah iyo 10 maalmood ka hor inta aysan dalkaasi ka dhicin afti laga yaabo in lagu bedelo muddada uu madaxweynaha xilka haynayo. dowladda Burundi ayaa jimcihii ku dhawaaqday in ay dalkeeda ka mamnuucday dhageysiga idaacadaha FM-ka ah ee qaybta la hadasho Burundi ee VOA-da muddo 6 bilood ah. wariyayaasha VOA ee ku sugan Burundi ayaa isniintii shalay ku waramay in mamnuucitaankaasi ay dhaqan gashay 7 bishan May oo ku beegneyd isniintii shalay. 2 cisho ka hor inta aysan kusimaha hay-adda CIA-da Gina Haspel aanan la weydiinin su'aalo ku aadan ansixinteeda si ay u hogaamiso hay-adda CIA ayaa aqalka cad waxa uu bilaabay inuu difaaco iyagoo sheegay in ay tahay haweeneyda ugu habboon ee shaqadaasi qaban lahayd. Gina Haspel ayaa ah rugcadaa 61 jir ah muddana kasoo shaqaynaysay hay-adda iyadoo hadda ah kusimaha agaasimaha hay-adda CIA-da waxaana loo soo bandhigay dalab ah inay ka noqon karto inay Kongareeska hortagto si loo ansixiyo iyadoo uu jiro walaac ku aadan lugtii ay ku lahayd su'aalo weydiin, jirdil iyo cadaadis loo isticmaalay oo hay-adda CIA-du ku samaysay dad ay soo qabatay si ay u baarto, balse madaxweyne Trump ayaa ku adkeeyey in ay Haspel ay booskeeda xajisato. hay-adda CIA-da ayaa isniintii shalay waxay xirmooyin dokumentiyo sir ah u gudbiyeen aqalka sanadka si uu sanadku u eego taariikhda shaqo ee ay leedahay gabadhan. saraakiil aqalka cad ka tirsan ayaa si degdega ugu tegay xafiiska CIA-da ee Langley ku yaala gobolkan Virginia jimcihii si ay ugu qanciyaan in aysan ka noqonin in ay hortagto Kongareeska. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa VOA. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa shalay soo bandhigtay ciidamo gacan ka geysan doona ammaanka caasimadda Muqdisho. ciidankan oo ka kooban dhowr laamood oo la isku daray ayaa la filayaa inay dhowaan howlgalaan. warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa daahfurtay qorshe cusub oo wax looga qabanayo xaaladda amniga magaalada Muqdisho, waxayna soo bandhigtay askar cusub oo isku dhafa oo laga soo ururiyey qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida. ciidamadan oo aan tiradooda rasmiga la shaacin ayaa la sheegay inay howshoodu tahay xasilinta magaalada Muqdisho iyo sidii door muuqda ay uga qaadan lahaayeen hirgelinta amniga caasimadda.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo kormeer shaqo ugu tegay ciidamadan cusub ee loogu talagalay xasilinta muqdisho ayaa ka warbixiyey ujeedada ciidamadan loo unkay iyo nooca hawsha ay qabanayaan. ciidan loogu talagalay inay amniga magaalada wax ka qabtaan dhammaan taliyayaasha kala duwan iyo wasiirada iyo gudoomiyaha gobolkana u mahad celinaya. wada shaqayntan ka dhaxaysa maamulka gobolka banaadir iyo ciidamada iyo golaha wasiirada dhammaan xukuumadda waxa ay ka turjumaysaa dadaalka loogu jiro in la soo celiyo ammaanka magaalada oo waayahan oo dhan laga shaqaynayo. waxaan rajaynaynaa in dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay la shaqayn doonaan ciidamadana waxaan ka codsanaynaa inay aad u ilaaliyaan shacabka ay amnigooda ka shaqaynayaan. taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Bashiir Axmed Jaamac Bashiir Goobe ayaa sheegay in ciidamadan ay ka kooban yihiin 3 guuto wax badanna laga filayo inay ka qabtaan howlaha sugidda ammaanka Muqdisho. waxaa kan galabta diyaar ku ah 3 guuto oo ka tirsan ciidankaas oo isugu jira 4 ciidan ee qaranka ee qalabka sida ciidankaas oo maanta diyaar u ah inta halkan taagan 3 jibaarkooda ay dibadda taagan yihiin intuu golahan u qaaday halkan la soo istaajiyay. ciidamadan loogu talagalay xaqiijinta ammaanka magaalada Muqdisho ayaa waxaa sidoo kale waajibaadkooda shaqo ka mid ah inay la dagaalamaan ururka al-shabaab sida uu tilmaamayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Cabdisalaam Muuse oo ka hadlay madashii ciidankan lagu soo bandhigayay. ciidankan waxay diyaar u yihiin awaamirta inay qaataan, waxay diyaar u yihiin in shacabkooda ay la shaqeeyaan, waxay diyaar u yihiin inay cirib tiraan nimanka burcadiimeedka ah oo shacabka Soomaaliyeed gumaada. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa sheegay dhinaciisa in maamulka gobolka Banaadir iyo ciidamadan loo qorsheeyay xasilinta magaalada ay si wada jira u shaqayn doonaan. ciidankan waa geesiyaal runtii diyaar u ah inay xasiliyaan caasimadda isla markaana ay ka hortagaan nabadiidka u diidan shacabka Soomaaliyeed inay horumar gaaraan, dawladnimo gaaraan, lana tartamaan dalalka kale adduunka. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ciidankan cusub kula dardaarmay inay ku sifoobaan sidii ay u hanan lahaayeen nabadgelyada magaalada Muqdisho muddo 9 casho ah isla markaana howlgalkooda looga dareemi lahaa dhammaan gobolka Banaadir. waxaa muhiim horta in magaaladu ay tiraahdo waxaa yimid ciidan na daryeela na ixtiraama. xaafadaheeni waa laga dhameeyay kuwa dhagarwadayaasha ah. habeenkii baa xaafadaha la socdaa ma cabsanayno. haddii laakiin dadka dariiqa maraya idinka baqaan amni aad sugtaan iska daaya idinka ummadda dhibaato ku ah idinkaana leedin habaaraya. waxaa leedinka rabaa inaad isla xisaabtantaan idinkana leedinla xisaabtan. dadka Soomaaliyeed way dhibaatoobeen idinku waxaad u timaadeen inaad dhib ka saartaan inaad dhib u keentaan leedinkama rabo. waxaan rajaynayaa markii inuu Ilaahay idinka dhigo kuwii ummadda Soomaaliyeed horumar u horseeday. wax walba ood u baahan tihiin kala hadla taliyayaashiina, agabkiina, raashinkiina aad ilaalisaan idinku si aad ummadda Soomaaliyeed u ilaalisaan. waxaan idin rajaynayaa guul waa idin soo noqon doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waa idinka soo warqabi doonaa. waa noo 9 maalmood. ugu dambeyntii qaar ciidamadan isku dhafka ee loogu talagalay inay xasiliyaan magaalada Muqdisho ka mid ah ayaa ka warbixiyay dareenkooda ku aadan hawshan loo xil saaray. 9 maalmood uu ra'iisul wasaaruhu sheegay in aan wax ka qabanno magaalada Muqdisho isbedel muuqdan aan ka muujino 9 maalmood. waxaan amarkaan qaadanay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu nasiyay in aan fulino 100% ayaan ku marnay kitaab aan marna ka laaban doonin cidna aan ugu gaban doonin. maanta waxaan diyaar u nahay inaan bulshada u shaqeyno taasoo ku salaysan nabadgelyada amniga magaalada Muqdisho. marka waxaan leeyahay Soomaaliya guul. ciidamadan loogu talagalay inay sugaan nabadgelyada caasimadda Soomaaliya ayaan ilaa iminka la ogeyn qaabka uu howlgalkoodu noqon doono iyo waxa ay ka bedeli doonaan amniga magaalada Muqdisho maadaama la xasuusan yahay inay jiraan ciidamo iyaga ka horeeyay oo ka shaqeyn jiray qorshaha xasilinta Muqdisho kuwaasoo dhowaan dowladda federaalku ay ka saartay barihii ay uga sugnaayeen magaalada Muqdisho booskoodiina ku bedeshay ciidamo boolis ah. xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho.
madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo dib ugu laabtay magaalada kismaayo kadib safar uu ku tegay dalalka kenya iyo ethoobiya iyo imaaraadka weliba ayaa dowladda dhexe ee soomaaliya waxa uu ku dhaliilay go-aankii ay dowladdu ka qaadatay arrimaha khilaafka wadamada khaliijka isagoo axmed madoobe sheegay in dowladdu ay si cad u taageertay dowladda qatar taa bedelkeedana uu maamulkiisa taageeraya dowladda imaaraadka wariyaha v o eda ee nairobi qadar maxamuud xareed ayaa warbixinta nooga soo diray nairobi kadib safar dhowr toddobaad qaatay oo uu ugu maqnaa waddamada kenya iyo ethoobiya ayaa madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo shalay dib ugu laabtay magaalada kismaayo islamarkaana shir jaraa'id ku qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ayaa arrimaha uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa dhaliil xooggan oo uu u jeediyey dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaana siyaasadda arrimaha dibadda iyo tillaabadii ay dowladda dhexe ay ka qaadatay arrimaha khaliijka oo uu ku tilmaamay in dowladdu ay la safatay dowladda qatar jufaa lala noqday kuwii kalena waxaa la waa burca tuugaho sidanoo kaleo dhibaata ka dhacday aan miisaanka saarra marka war annagu soomaali baana dagaalka khaliijka in la soo xawilo carabi hadday dagaalamaysa ku dagaalanta dhulkeeda maxaa sababaya in annaga ciidda iyadu ay noqoto iyo dadnimada iyada iyo dowladnimada iyadu midda la isku haystay dhibaatada laga geysanayo shay saxa ma aha hadday noqoto qatar iyo maanta imaaraad iyo sacuudi iyo marka dib miisaanka loo saaro shalay soomaalidu markay bururtay dhaqaalaheedii intii ganacsi iyo xoolo lahaa imaaraad bay la tageen iyo sacuudi shalay markii xawaaladaha la joojiyay hantidii soomaalidu imaaraad bay ku badbaaday maanta dheefta iyo ganacsiga iyo waxa socdaaya waa imaaraad iyagaa maanta ay naga soo gaaraan jubbaland markaan ka hadlayno wax ciidan maanta ama qalab noo siiyey ama tababare ama dugsiyo dhisay ama waxtar geystay weli maana arag qatar foundation qolo la yidhahda wiil maalin la iga tuso isagana wax intaa dhaafsan kumaana dhaafay shalay waxaan ahaa qofkii dhexdhexaad lahaa weli imaaraadka ka diiday cid walba ka diiday bosishankiisu si cad u ahaa madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa sheegay in safarkii uu ku tegay dalka etoobiya ay mas-uuliyiinta waddankaasi ka wada hadleen arrimo ku saabsan sii deynta cabdikariin muuse qalbi dhagax oo ah sarkaal ka tirsan ONLF islamarkaana dowladda federaalk ee soomaaliya ay dhammaadkii sanadkii hore ku wareejisay dowladda etoobiya waxaanan isleeyahay safarkayga dhexdiisa waxaa hadda aada loo hadalay oo ka mid ahayd booqashadii hadda ugu dambeysay ee ku soo maray etoobiya oo kale taas oon isleeyahay iyaduna wuxuu ahaa mid wejiga fiican sax ku ahayd weliba arrinta ku saabsanayd inaan amniga etoobiya weydiisto ninkii qalbi dhagaxa cabdikariin isagana arrintiisu ay ii ogolaatay inaan isagiina la kulmo kana wada hadallo insha allahu ninkaasina arrintiisu haddana xaalad aad u fiican uu ku nool yahay kiiskiisuna uu si fiican ku soo dhammaan doona insha allahu taasaan shacabka raba inaan u gudbiyo arrimaha uu sidoo kale ka hadlay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe waxaa ka mid ahaa booqasho ay dhowaan gobolka gedo ay ku tageen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya kuwaasoo la sheegay in arrimaha ku saabsan booqashadooda aanan lagu soo wargelinin maamulka jubbaland gedo oo kale sida hadda baardheere iyo doolow iyo fataalaha ka dhacay intan inoogu dhowaa hadda yoonto iyo waad aragtaa waxa ka dhacaya meelaha qaarkood joorre oo kale way jirtaa waxaasoo dhan waxaan la hadlayay saaka dhoobley oo kaleo meel dabaal xataa dadku isuguma gudbi karaan meelaha ku xariirsan oo kale waa wax dowladda dhexe la rabo inay baaqeeda iyo waxay ka gurban kartiiyo kulli ka soo jeediso laakiin maxaa yaalla dowladda waxaa la rabaa inay guriga albaabka ka soo gasho waatulbuyuuta min abwaabiha guriga iriddaa laga soo galaa waxaa fiican inay u muuqato dowladdu mid sistamka ka hooseeya ee iyada la shaqaynayana xaq dhowraya dadkeedana u gurmanayso xaq dhowraysa laakiin hadday u muuqato in iyadu si kale loo isticmaalay dhibkeeday leedahay waan uga mahad celinayaa qoladii shalay baardheere iyo luuq iyo tartiib ra-iisul wasaare ku-xigeenku iyo xildhibaanadii la socday laakiin waxaan leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin waase shaqadii aad lahayd inaad qabateen waxaase ka sii ficnayd idinkoo guriga iridda intaad ka soo gashaan maamulka iyo sistamka meesha ka jiray inay intay weydiiyaan iyaguna sida loo qabanayo loo waxeeyo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa ugu dambayntii mas-uuliyiinta dowladda dhexe u soo jeediyey dowladda maanta taagan waxaa laga rabaa horumarin iyo sii jiidid ay meel hore gaadhsiiso iyo inay ka sii bilowdo oo berri iyaduna la yidhaahdo dowladdii maxamed cabdulaahi farmaajo iyaduna waxay gaadhay sidaa iyo sidaa iyo sidaas iyo intaas
macnaha aan uga jeedaa waxay tahay maanta marka aan ka hadlayno mas-uuliyadka dowladda iyo dadka iyo kulligoodna saaran ama mas-uuliyaadka jiraa waxay yihiin markaan wax iska weydiino waddanku waa federaal, ciidamadu waa federaal, sistamku waa federaal, isteedyaa la sameeyey, mas-uuliyaadku way qaybsan yihiin. maxay u qaybsan yihiin? wax dowladdii dhexaa iyo wax isteedyadii qaadanayaan iyo wax noocaas oo kalea. dowladda dhexe waxay taagan tahay mansiladii aabbaha oo kale. marka waxaa looga baahan yahayna waxay tahay isku xidhnaan, isku soo duubid, isu keenis iyo in la dhaadhiciyo mas-uuliyaadkii iyo waxqabadkii iyo wixii dadka loo qaban lahaa. hadalka madaxweynaha Jubbaland ayaa imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay aad loo hadalhayay in madaxda Puntland iyo Jubbaland ay magaalada Dubai ee xarunta isutaga Imaaraadka Carabta ay wadahadal aysan ka warqabin dowladda dhexe ee Soomaaliya ay kula yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Imaaraadka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. haatanna bariga dhexe dalka lubnaan waxaa ka soo baxaya natiijooyin hordhac ah oo ku aadan doorashadii baarlamaaniga ahayd ee axaddi ka dhacday dalkaasi. warbixin arrintan ku saabsan waxaa qaahire ka soo diray waryaheena xuseen zaxnuuni. natiijada hordhaca ee kasoo baxday codbixinta doorashada baarlamaaniga ee dalka lubnaan ayaa tilmaamaysa inuu ku guulaystay ururka xisbullah, halka isbahaysiga uu horkacayo ra-iisul wasaaraha sunniga ee dalkaasi ay kala kulmeen guuldaro aysan filaynin. ra-iisul wasaaraha xukuumadda lubnaan sacad al-xariiri ayaa warfideenka u sheegay xisbigiisa al-mustaqbal inuu ku waayay kuraas badan doorashada maalintii axadda ka dhacday dalkaasi. sacad xariiri oo ka hadlay natiijada doorashada baarlamaanka oo aan weli si rasmi ah loo sheegin xisbigiisa al-mustaqbal inuu helay keliya 21 ka mid ah kuraasta baarlamaanka oo ah 128 kursi. xisbiga al-mustaqbal ee ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa horey u haysay 33 ka mid ah kuraasta baarlamaanka, taasoo xisbigiisa iyo xulafadiisa ka dhigaysay inay noqdaan aqlabiyadda baarlamaanka waddankaasi. ra-iisul wasaaraha dalka lubnaan ayaa muujiyey inay filayeen natiijo intaasi ka saraysay iyo kuraas ka badan kooxaha shiicada iyo masiixiyiinta, laakiin waxaan soo dhowaynaynaa ayuu yidhi natiijo kasta oo ka soo baxda doorashada baarlamaanka, sababtoo ah waxaa muhiim ah inaan gaarno isfaham dhinaca siyaasadda ah. waxaa suurtagal ah inaan noqdo ra-iisul wasaaraha dalka mar kale waa haddii aan isku raacno qaybaha hogaamiyaasha kala duwan ee axsaabta waddanka, ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha dalka lubnaan sacad al-xariiri. dhinaca kale hogaamiyaha ururka xisbullah xasan nasrullah oo ka hadlay natiijada hordhaca ayaa ku sifeeyey inay tahay guul siyaasadeed oo usoo hooyatay kooxaha muqaawamada ama wax iska cabinta ee dalkaasi iyo guud ahaan mandiqada. warbaahinta dalka lubnaan oo ka hadashay natiijada hordhaca ah ayaa sheegtay ururka xisbullah inuu helay ugu yaraan 67 ka mid ah kuraasta baarlamaanka ee dalkaasi. xisbiga dadka lubnaan ee kasoo horjeeda ururka xisbullah ayaa kordhiyey dadka u tartamayay doorashada baarlamaanka deegaanada ay degan yihiin dadka masiixiyiinta si ay u helaan 15 kuraasta baarlamaanka dalkaasi, taasoo ka badan tirada hore ay uga hayseen baarlamaankii hore oo gaaraysay 8 xubnood. inkastoo natiijada hordhacahi ay sheegayso in sacad xariiri looga guulaystay gobollo dhowr ah, haddana waxaa la leeyahay sacad al-xariiri waa musharaxa ugu xoogan ee soo dhisi kara xukuumadda soo socota, sababtoo ah nidaamka awood qaybsiga ee dalkaasi ayaa si dadban u sheegaya ra-iisul wasaaraha dalka lubnaan inuu noqdo qof muslim ah oo sunni ah. laakiin xildhibaanayaasha dalkaasi ayaa muujinaya inay adkaan doonto in al-xariiri noqdo ra-iisul wasaaraha soo socda ee waddankaasi, maadaama xiriirka isaga iyo xisbullah uusan sidii hore u wanaagsanayn. haddaba maxamed bulay maxamed oo ka faalooda arrimaha dalalka carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu u arko natiijada hordhaca ee doorashada baarlamaanka lubnaan iyo waxa la fili karo. waxay heshay xisbullah xubno ka badan matalaada baarlamaanka markii hore ku haysteen, iyada xulufadeedu isbedelku wuxuu ka dhacay cidda ay isbedelku markaan ku dhacday waxa weeye waa xisbiga al-mustaqbal, ra-iisul wasaaraha talada haya sacad al-xariiri. meesha ay khasaaradu ka timaada waxa weeye xisbullah dadka ay taxaalifka kula jirto ama gaashaanbuurta la ah ee sunniyiinta ee magaalooyinka waaweyn sida beirut iyo magaalada la yidhaahdo Tripoli
iyo saydaa saddexdaa magaalo ayaa waxa weye xisbiga mustaqbal oo aada hoos u dhac uga yimaaday taageeradiisii oo waxaa helay dad kaloo suniyiina oo laakiinse la garab ah xisballah. arrintaas waxaa loo sababeyn karaa doorashadan wakti ay kusoo beegantay oo ahaa wakti ay taageerayaasha xisbiga mustaqbal oo ay ugu waaweyn sacuudiga iyo ay ku jiraan dagaalo yeman ka socda iyo dhinacyo kale oo caalam suuriya ay kamid tahay. arrintaasa loo sababeyn karaa in ay keentay iyo dadka reer lubnaan laftirkooda oo ka rajan dhigaya xisbiga almustaqbal muddada ugu dambeysay. sida marka si guud loo fiirsho xisbullah taageero fiican ayuu helay baarlamaanka isagii xulfadiisa 70 xubnood wax ku dhowey ku yeelan doonaan baarlamaanka oo 120 sida la filayana waxa waaye wax weyn siyaasadda guud kama bedelayso. sidaan la socono siyaasadda lubnaan waxa lagu qaybsadaa daa'ifooyin diimeed oo ah sunni shiico iyo masiixiyiin. si guud marka waxa weeye laakiinse waxay noqonaysaa dowladda soo dhisi doona waxaa la fili doonaa inay arrintan u noqon doonto xisbullah awood ay ku dhex yeelato baarlamaanka iyo weliba magac ay ku hesho banaanka laftirkiisa ay ku gorgortanto oo aan loo arkin keliya inay tahay urur argagixiso. sidaan la socono wadamada reer galbeedka xisbullah iskuma fiicna. marka arrimahaas oo dhan waxay aada isbedel ugu samayn doonaan khariidada siyaasadda ee wadanka lubnaan waxayna noqonaysaa awood usoo korortay xisbiga xisbullah. dalka lubnaan ayaa ugu dambeysay in dadweynaha ay soo doortaan xildhibaanada baarlamaanka sanadii 2009 kadib markii ay saameyn ku yeesheen dagaalada ka socda dalka ay jaarka yihiin ee suuriya. xuseen saxnuuni, VOA Qaahira. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington, waana idaacaddeenii aroornimo. mar kale ayaanu idin leenahay subax wanaagsan meel walba aad nagala socotaan. markana ciyaarihii iyo nuur xasan nuur oo horteeda fadhiya. mahadsanid Falastiin. soo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha. kadib markii ay bishii hore ku guuleysatay kooxda Paris Saint-Germain liigwanka Faransa ayay hadda u tafaxeedinaysaa inay qaado caawa koobka French Cup oo ay la ciyaari doonto naadiga heerka saddexaad ee Les Herbier. kulankan ayaa qiimo gaar ah ugu fadhiya tababaraha kooxda PSG Unai Emery oo ka tegaya kooxda kadib 2 sannadood oo uu leylinayay. Emery ayaa dhammaysan doona heshiiska uu kooxda kula joogo bisha Juun ee soo socota. kulanka caawa oo ka dhici doona garoonka Stade de France ayaa waxaa PSG ka maqnaan doona laacibiinta dhaawaca uga maqan ee kala ah Neymar iyo Marco Verratti. dhinaca Talyaanigana waxaa biri dhici doona finalka tartanka Coppa Italia oo ay ku loolami doonaan kooxaha Juventus iyo AC Milan. Juventus waxaa dhaawac uga soo laabtay oo tababarkana shalay ku soo biiray laacibiinta kala ah Mario Mandzukic, Matteo Di Chilio iyo Stefano Sturaro. dhinaca Milanna waxaa u soo laabtay Lucas Biglia oo dhaawacnaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay iyo Suso oo isna ku dhaawacmay ciyaartii ay Milan axaddii la dheeshay kooxda Verona aan idhaahda Sabtidii. haddii ay Milan badiso waxay noqonaysaa koobkii ugu horreeyey oo uu abid qaado tababaraheeda cusub Gattuso. laakiin Juve iyadu guusha ciyaartan waxay uga dhignaan doontaa in tartankani ay ku guulaystaan markoodii afraad oo xidhiidh ah. sidoo kale Juventus ayaa qaadi doonta toddobaadkan haddii ay 1 dhibic ka keento kulanka ay ciyaari doonta amaba 2 kulan ee horyaalka ka harsan. dhanka kalena xiriirka kubadda cagta Yurub ee loo soo gaabiyey UEFA ayaa isniintii shalay ku dhawaaqay garsooraha dhexdhexaadin doona ciyaarta finalka ee koobka horyaalada Yurub ee 26 bishan dhex mari doona kooxaha Real Madrid iyo Liverpool. tababare Mazic Milorad oo ah 45 sano jir u dhashay dalka Serbia ayay UEFA ku aamintay firimbiga ciyaartaasi oo ka dhici doona garoonka Olympic Stadium ee magaalada Kiev ee caasimadda dalkaasi Ukraine. Mazic ayaa ahaa garsoore caalami ah tan iyo sanadkii 2009. xil ciyaareedkan wuxuu dhexdhexaadiyey 4 kulan oo ka tirsan tartanka Champions League iyo 2 ciyaarood oo ka tirsanaa koobka Europa League. wuxuu ahaa garsooriyihii dhexdhexaadiyey finalka koobka Confederations Cup ee sanadkii hore dhex maray Chile iyo Jarmalka. sidoo kale wuxuu garsooray finalkii UEFA Super Cup ee dhex maray 2016 kooxaha Real Madrid iyo Sevilla. xubinta ciyaarahana dhegeystayaal waa naga inta. mahadsanidkaas waxaa ahaa nuur xasan nuur oo ciyaarihii nala socodsiinayay.
waa tahay dhegeystayaal haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaadna kusoo dhawaataan codka fanaanka xuseen miiraale.